gacmo furan iyo salaan gacaltooyan sidnaaye gaalkacyoy ma nabadba waa idiin soo geliimnaye gaalkacyoy ma nabadba gurigii kaftankan gebigeen gudaha u soo galnee gaalkacyoy ma nabadba waa nabadha gaalkacyay geesiyaal barbaashay gaalkacyay ma nabadba gaashaanqaad adkaysile geygii ku caanow gaalkacyay ma nabadba beerihii galeydii yamayskan biyaha gurin gaalkacyay ma nabadba geygii halyey cabdullaahi ciisow gaalkacyay ma nabadba galmudug loo dhan yahay baan idiin soo gelbiyeye gaalkacyay ma nabadba galmudug wada heshiisaan gogosheeda fidine gaalkacyay ma nabadba taariikhda iyo ilbaxnimada ay huwan tahay magaaladan gaalkacyo waxay ka muuqataa soo dhoweynta diiran oo aad noo samayseen ilbaxnimadiinnu waxay ka muuqataa dowladnimada dhallinyaro iyo waayeel rag iyo dumar aada horteenna ku taagan tihiin waa mahadsantihiin waxaan idinkugu nimid socdaal qayb ka mida in la adkeeyo maamul goboleedka galmudug laakiin waxaa sharaf weyn ii ah inaan taaganahay magaaladii ay ka soo bilaabatay taariikhda dowlad goboleedka galmudug 13 sano ka hor sano ka hor ama 2006 rag Soomaaliyeed oo idinka tirsan ayaa aasaaska u jeexay Allah u naxariiste oo ugu horeeyay halyeeyeenii kiimiko waxaan leenahay geedi socodkii ay soo bilaabeen raggaas iyaga ah oo qaar ka mid ay halkan joogaan oo ugu horeeyo jenaraal qaybdiid iyo madaxweyne xaaf iyo kuwo kale uu caalim ka mid yahay cabdikariin guuleed ka mid yahay kulligood waxay soo qabteen shaqo kulligood halkan ay ka soo jeedaan kulligoodna waa u mahad celinaynaa dadaalkii ay soo bilaabeen dadkaas idinkuna aad kala soo shaqayseen ayaan socdaal dheer gobollada galmudug oo dhan ku soo marnay si aan u dhammaystirno hawshaas iyada gaalkacyo waa magaaladii ay ka bilaabatay halganka gobonnimo doonka magac iyo maamuus dadkiina halkan taagan halyeeye ahaan waxaa ugu filan Allah u naxariistee kii loogu magac daray isbartiibada maadaama magaciisu uu nagu weyn yahay soomaalinimada uu qurxiyey isbartiibadan adigu magac darteenna waa inaan qurxinnaa oo ay dowladdu lacag gelisaa waxaan aaminsanahay inay dhallinyaradu ku farxi doonaan arrinkaas
magaaladani waxay caan ku tahay isbeddel walba oo dalkan ka dhaca waxaa hormuud ka ahaa gaalkacyo isbeddel walba oo soomaaliya ka bilowda waxaa soo bilaaba gaalkacyo markii burburku dhacay meesha keliya oo laga sameeyey dib u heshiisiin rasmi ah oo dhaqan gashay oo jirtay 25 sano waa magaaladani waxaan leeyahay Soomaaliya taariikhdeeda soo fiiriya sababtoo ah waa magaaladii xalay dhalay laga soo gaaray waa dadkii fahmay in la iscafiyo waa dadkii fahmay in la wada noolaado waa dadkii fahmay in la isku khasban yahay meel walbo aad dalka ka degan tahay gaalkacyo midaysan isku furan is ogol waa bilowga midnimada iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed maadaama aad tusaale u tihiin ilbaxnimada midnimada horumarka iyo adkaysiga waxaa la rabaa idinkoo tibaaxaya doorka aad ku leedihiin dalka iyo dadka Soomaaliyeed inaad ku jihaysaan nidaamkaas isaga ah oo ah nidaam horumareed waxaan soo marnay jid dheer oo aad u jajaban oo aan aaminsanahay si jidadkaas loo hagaajiyo inay khasab tahay in la helo dawlad goboleed shaqaynaysa maamul loo wada dhan yahay maamul shaqo laakiin waxaan idinkugu bishaaraynayaa in dawladdeenu ay mar dhow saxiixday heshiis taabo gelinaya in la dayactiro jidkan laga soo bilaabo beledweyne ilaa gaalkacyo oo mar dhow idiin bilaaban doona waxaan aaminsanahay si loo helo Soomaaliya dhammaystiran inay muhiim tahay in la helo galmudug dhammaystiran dhammaystiranna waxaan aaminsanahay in la helo gaalkacyo horumarsan toosan oo tayaysan ku dhowaad 30 sano ayay dadka Soomaaliyeed dib soo arkeen idinkuna aad qayb ka ahaydeen in dadka Soomaaliyeed dib la isugu keeno midnimada ummadda Soomaaliyeed waa muqaddas gaalkacyana waxaan leenahay waxaa tahay laf dhabarka dadka Soomaaliyeed taariikh ahaan waagii hore iyo haddaba waxaan idinkugu yeeraynaa markaa doorkiinnii hore oo weli taagan si ummadda Soomaaliyeed horumarka ay bilowday ay uga mari dhaliso dalku waa inuu dib u heshiisiin galaa dalku waa inuu helaa nidaam horumareed oo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan u adeegaya sidaas daraaddeed ayaa socdaalkeenu wuxuu ku saleysnaa in la helo nidaam galmudug tii aad soo bilowdeen oo dhammaystiran sidaas daraaddeed waxaan rajaynayaa inaad noo oggolaataan inaan idinla dhammaystirno maamul goboleed galmudug ah oo loo dhisay si furan cadaalad ah qof walba xuquuqdiisa uu ka helo qofna aanu sadbursi ku samayn qof kale waxaa kaloo aan adigu faraxsanahay halkan dib u heshiisiintii ka dhaxday ciidamadii isku dhafka ahaa oo markii madaxweynuhu yimid laga hirgeliyey inay weli shaqaynayaan waxaan u imid iyadana inaan sii dhammaystirno sii xoojiyo wax walbo agab ah oo ka maqanna loo hagaajiyo haddii Ilaahay yiraahdo gaalkacyo hagaagsan waa Soomaaliya hagaagsan gaalkacyo midaysan waa xalka Soomaaliya oo midaysan gaalkacyo isku duuban waa Soomaaliya oo isku duuban
gaalkacyo horumarka ummadda Soomaaliyeed u soo jeesatay waa Soomaaliya horumar iyo midnimo u soo jeesatay waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato reer gaalkacyana Allah barakeeyo waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu